dalka hubkiisa samaysan waaya tan oo kale ayaa ku dhacda markuu sanadku ahaa 2004 ayaa dalka Malaysia ka iibsaday dalka Mareykanka 8 diyaaradood oo ah nooca loo yaqaano F-18 oo ugu casrisanaa waqtigaas qiimaha lagu kala iibsaday ayaa ahaa wax ka badan 640 milyan oo dollar. markii diyaaradihii ay soo gaareen Malaysia ayaa loo xilsaaray koox Malaysiyaana oo khubaro iyo injineero isugu jiray, waxaana injineeradii Malaysia ogaadeen in diyaaradahani ay markiiba fariimo u dirayaan saldhigga ciidanka Mareykanka ee loo yaqaano Noronhari oo ku yaala jasiiradda Hawaii. sida marka ay diyaaraddu kacayso, xawaaraha ay diyaaraddu ku socoto, meesha ay joogto iyo bartilmaameedyada lagu socdo, iyo wadahadallada u dhaxeeya bayloodka iyo qolka operationka ee dhulka. intaa kaliya maahe waxay ogaadeen injineeradii Malaysia in Mareykanku joojin karaan qalabka ka shaqaysiinta diyaaradda, iswadida diyaaradaha ee loo yaqaano autopilotka. sidoo kale in hal batan oo uu taabto sarkaal Mareykani oo jooga saldhigga Hawaii inuu soo ridi karo diyaaradda, jeedin karo meesha ay u socotay diyaaraddu ama uu fadhiisin karaba. markii ay Malaysia isku dayday inay wax ka beddesho programka diyaaradda, waxaa ka firciliyay Mareykanka iyo shirkaddii samaysay diyaaradaha, waxayna ugu hanjabeen Malaysia in aanay ka iibin doonin wax isbeerbeerte ah oo ay diyaaraddu u baahato, iyo in laga xanibi doono hubka cirka. sidoo kale markii ay ka codsadeen inay siiyaan baaswoorada ka shaqaysiinta qaybaha kale ee diyaaradda, waxaa diiday shirkaddii diyaaraddaas samaysay ee la yidhaahdo Douglas. ugu dambayntii Malaysia waxay ogaatay inay iibsatay diyaarado dagaal oo aan ku shaqaynayn arrimo ciidan, dagaalna aan lagu geli karin oggolaanshaha Mareykanka la'aantii. ra'iisul wasaarihii Malaysia Mahathir Mohamad oo arrintan ka hadlayay waxa uu yidhi, wanaagsanaan lahayda in Malaysia iyo waddamada la midka ahi isku tashan lahaayeen oo ay samaysan lahaayeen tiknoolajiyada ay u baahan yihiin. waaya tan oo kale ayaa ku dhacda markuu sanadku ahaa 2004 ayaa dalka Malaysia ka iibsaday dalka Mareykanka 8 diyaaradood oo ah nooca loo yaqaano F-18 oo ugu casrisanaa waqtigaas qiimaha lagu kala iibsaday ayaa ahaa wax ka badan 640 milyan oo dollar. markii diyaaradihii ay soo gaareen Malaysia ayaa loo xilsaaray koox Malaysiyaana oo khubaro iyo injineero isugu jiray, waxaana injineeradii Malaysia ogaadeen in diyaaradahani ay markiiba fariimo u dirayaan saldhigga ciidanka Mareykanka ee loo yaqaano Noronhari oo ku yaala jasiiradda Hawaii. sida marka ay diyaaraddu kacayso, xawaaraha ay diyaaraddu ku socoto, meesha ay joogto iyo bartilmaameedyada lagu socdo, iyo wadahadallada u dhaxeeya bayloodka iyo qolka operationka ee dhulka. intaa kaliya maahe waxay ogaadeen injineeradii Malaysia in Mareykanku joojin karaan qalabka ka shaqaysiinta diyaaradda, iswadida diyaaradaha ee loo yaqaano autopilotka. sidoo kale in hal batan oo uu taabto sarkaal Mareykani oo jooga saldhigga Hawaii inuu soo ridi karo diyaaradda, jeedin karo meesha ay u socotay diyaaraddu ama uu fadhiisin karaba. markii ay Malaysia isku dayday inay wax ka beddesho programka diyaaradda, waxaa ka firciliyay Mareykanka iyo shirkaddii samaysay diyaaradaha, waxayna ugu hanjabeen Malaysia in aanay ka iibin doonin wax isbeerbeerte ah oo ay diyaaraddu u baahato, iyo in laga xanibi doono hubka cirka. sidoo kale markii ay ka codsadeen inay siiyaan baaswoorada ka shaqaysiinta qaybaha kale ee diyaaradda, waxaa diiday shirkaddii diyaaraddaas samaysay ee la yidhaahdo Douglas. ugu dambayntii Malaysia waxay ogaatay inay iibsatay diyaarado dagaal oo aan ku shaqaynayn arrimo ciidan, dagaalna aan lagu geli karin oggolaanshaha Mareykanka la'aantii. ra'iisul wasaarihii Malaysia Mahathir Mohamad oo arrintan ka hadlayay waxa uu yidhi, wanaagsanaan lahayda in Malaysia iyo waddamada la midka ahi isku tashan lahaayeen oo ay samaysan lahaayeen tiknoolajiyada ay u baahan yihiin. dalka hubkiisa samaysan waaya tan oo kale ayaa ku dhacda
markuu sanadku ahaa 2004 ayaa dalka Malaysia ka iibsaday dalka Mareykanka 8 diyaaradood oo ah nooca loo yaqaano F-18 oo ugu casrisanaa waqtigaas. qiimaha lagu kala iibsaday ayaa ahaa wax ka badan 640 milyan oo dollar. markii diyaaradihii ay soo gaareen Malaysia ayaa loo xilsaaray koox Malaysiyaana oo khubaro iyo injineero isugu jiray, waxaana injineeradii Malaysia ogaadeen in diyaaradahani ay markiiba fariimo u dirayaan saldhigga ciidanka Mareykanka ee loo yaqaano Noronhari oo ku yaala jasiiradda Hawaii. sida marka ay diyaaraddu kacayso, xawaaraha ay diyaaraddu ku socoto, meesha ay joogto, iyo bartilmaameedyada lagu socdo, iyo wadahadallada u dhaxeeya bayloodka iyo qolka operationka ee dhulka. intaa kaliya maahe waxay ogaadeen injineeradii Malaysia in Mareykanku joojin karaan qalabka ka shaqaysiinta diyaaradda, iswadida diyaaradaha ee loo yaqaano autopilotka. sidoo kale in hal batan oo uu taabto sarkaal Mareykani oo jooga saldhigga Hawaii inuu soo ridi karo diyaaradda, jeedin karo meesha ay u socotay diyaaraddu, ama uu fadhiisin karaba. markii ay Malaysia isku dayday inay wax ka beddesho programka diyaaradda, waxaa ka firciliyay Mareykanka iyo shirkaddii samaysay diyaaradaha, waxayna ugu hanjabeen Malaysia in aanay ka iibin doonin wax isbeerbeerte ah oo ay diyaaraddu u baahato, iyo in laga xanibi doono hubka cirka. sidoo kale markii ay ka codsadeen inay siiyaan baaswoorada ka shaqaysiinta qaybaha kale ee diyaaradda, waxaa diiday shirkaddii diyaaraddaas samaysay ee la yidhaahdo Douglas. ugu dambayntii Malaysia waxay ogaatay inay iibsatay diyaarado dagaal oo aan ku shaqaynayn arrimo ciidan, dagaalna aan lagu geli karin oggolaanshaha Mareykanka la'aantii. ra'iisul wasaarihii Malaysia Mahathir Mohamad oo arrintan ka hadlayay waxa uu yidhi, wanaagsanaan lahayda in Malaysia iyo waddamada la midka ahi isku tashan lahaayeen oo ay samaysan lahaayeen tiknoolajiyada ay u baahan yihiin.